ku soo biir YouTube-keena Sameeyo Production 1. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan ku guda jirnaa koorsadeeni QuickBook Enterprise Solution ee 2026 koorsadan magac darnay oo waliba la socodsiinayo anigoo Mahdi Sameeyo waa basic course. haddaba casharkeenan oo noqonaya casharkii tobnaad waxaynu ku soo qaadan doonaa sidee ayaa markaasi loo soo samaystaa itemiska aad iibin lahayd mustaqbalka. mar haddii aan casharkii ka koreeyay inuu ku soo baranay sida vendorska alaab ka soo deynsado ama ka soo iibsanayso loo soo abuurto kana itemadii aan soo iibsan lahayn ama markaa noo yaalay meheradeenna aan furayno ayaynu si abuuranana si hadhow inuu fududaato qaabka soo gelinta aan ku bilowno. marka sida tan QuickBook joogno waxaan tagi doonaa meesha ay ku qoran tahay lists halka chart of accounts ku xigta item list ayaa hal mar gujin doonaa. gujinta kadib daaqadan ayaa soo bixi doonta halka ugu hooseysa daaqada waxa ku qoran item oo waliba dhinaca bidixda xagga ugu hooseysa laba mid baa sameyn doonta in m-ta hoostiga xariiqan oo kale keyboardkaaga m taabato iyo in fallaadha hoos jeedo aad riixdo oo markaasi laba nail ama laba thumbnail oo isku mid ah soo boodaan. haddaba haddaan m keyboard riixno sidan baa noo soo baxayso, haddaan fallaadha hoos jeedo taabanana waxa noo soo baxaysa tan. marka saa u soo baxdo new ayaan dooran doonaa. marka new doorano waxa soo bixi doonta daaqadan qaybtan ay ku qoran tahay tape iyo qoraalkan taxan. qaybtan inventory party ila alaab iibinayna ayaan dooran doonaa. ugu horeyn waxa halkaas ka soo boodi doona daaqada noocana halkan category hoosteeda waxa ku qoran uncategorized ma leh markaasi miqaam saxa marka adigu meed ka dhiganaysaa. si aan uga dhigto fallaadha yar baan furi doonaa. waxaan oran doonaa alaabta ugu horeysay iibin doona categorygeedu waxa weeyaan khudaar ayaan oran doonaa. khudaar markay idhaahdo waxaan oran doonaa okay markay idhaahdo alaabta iibin doona waa khudaar. waxaan ugu horeysiinayaa markaasi salad waaye salad markay idhaahdo saladkaas marka saa idhaahdo waxa qasab igu ah saladkii in markaasi aan u sheego waxyaabahan ka iibinayay saladka. halka marka marayo khudaar dabeetana waxa sameynayaa inaan ku xigsiyo description-ka inaan markaa iibiyo salad kilo cabirkiisa weeyaan. halka waxaad ku sii qoranaysaa kiiloogi wixii markaasi kugu aad siinayso kiilaha saladka waxaan siinayaa $3. kiilaha saladka waxaan siinayaa $3 laakiin aniga wuxuu ugu joogaa 1.7 tusaale. waxaan waa example way halka ku qoran tahay income account waxaad oranaysaa income account-ka waxaad iga dhigtaa waxa weeyaan sales way. income account-ka igu sales way. waxaan leeyahay next halka markuu soo maro oo ugu soo saaro check spelling on form-ka option baad dooran doontaa. tigta ugu sarreysa ayaad ka qaadi doontaa dabeetana okay baad leedahay close baad iska oranaysaa. saas u shaygaas kugu save garoobay. ka ku xiga waxaan iibinayaa waxa loo yaqaano mango. markaasaan xariijin dhigin waxaan onayaa mango markaasaan xariijinta dhigaaloonaya cambe markaan saa idhaahdo halkan baan imanayaa khudaartii baan dooranaya. khudaar markaan saa u doorto mango waxaan onayaa mango khudaar 1 kg baa isagana ugu yar. waxaan onayaa mango waa qaali waxa laga siiyay kiilihiisa halkiisa kiilo wuxuu joogaa halkiisa kiilo wuxuu ku joogaa $1. aniguna waxaan sii siinayaa $2 kiilihiisa tusaale. saleskina hore soo doortay okay baan leeyahay. haddaba labadaas ayaa markaasi ay asaasan doonayaa inaan u iibiyo markaasi. haddaba si aan u iibiyo waxaan soo tagayaa casharka waa isku xigsinaa si loo fahmo. waxaan soo tagayaa halkay ku qornayd vendors
vendorkii alaabtan ka dalbaday ayaan doonayaa inaan tago. markaan tago waxaan tagayaa halka ku qoranta warqadii bay soo gaadhay ah receive item and enter bills. click baan siin doonaa. marka sidaa u tago waxyaabaha aad ka faa'iideyso waxa kamid ah marka saa u tagtid daaqada tan ayaa soo boodaysaa. vendorradii halkaa waa ku vendors laba vendor baan soo samaystay. deeq Allah trading company baan ku horeyn waxaan tagi doonaa in ay tahay alaab aan cash kaga soo iibsaday. may alaaban cash kaga soo iibsaday imka maaho. Sameeyo ka baro barashada QuickBooks iyo point of sale. hadda iska diiwaan geli. waa alaab aan ka soo deynsaday baan leeyahay. waa alaab aan ka soo deynsaday. alaab aan ka soo deynsaday si aan markaasi deyntii aan uga soo deynsaday tago waxaan tagayaa halkaa ku qorantay item. itemka koobaad waxa weeyaan khudaar baan marka horeba taabanaya ama falaadha saan furin dabeetana waxaan oranayaa maxaa ugu horeeya mango. mango markaas ay dhahdo mangaha tirada halkaa imka waxba ima yaala. mangaha waa 00. mangaha waxaan soo iibsaday hal karton ay ku jiraan markaasi 20 kilo wasaaba 20 kilo baan u qaadanayaa tirada. laakiin hadhow tire hab ka fiican ayaa dhiga doonaa cashirka kan ku xiga. 20 kilo imka waa tusaale marka qofku aan garanayn inuu unity cabro samaysto sidoo kale uu malaawalayo waxana 20 kilo. ka ku xigana waxa weeyaan waa salad. saladka asagana waxaan soo iibsaday asagana 10 kilo. intay ugu fadhiyaan waxay isku noqdeen totalkoodu 37. hadda deyn ayay noqon doonaa. waxaan ogaan doonaa in deyn nagu leeyahay markaas ay noqoto. alaabta way soo iibsanay laakiin lacag ma aan bixin. safe and close baan leeyahay. safe and close markay dhahdo casharkeenan isla anagu si guda jirna waxaan ogaan doonaa cidda nagu leeyahay lacagtaasi. report ayaa tagi doontaa si hor u soo tagnay hoos baa dhacdhacna waxa tagi vendor and payables aadir baad oran vendor balance summary. qofka igu leh lacagta waa deeq Allah trading company 37. marka soo aragtay dad garawada war 37 kan deeq Allah maxaa ka soo qaatay double click baad oran wuu soo boodin baa. waxa qoranaysa deeq Allah waa county payable way ahayd oo biila waa si guda gujin xilliga ka soo absatay cambaha iyo intuha asagoo hadda unit wata ay casharka kan ku xiga ku dhigan doona. markaas aad ogaan doontaa faa'iidada uu leeyahay QuickBooks enterprise solution. casharkeenna oo noqonaya casharkii 10aad halkaas uu nagu joogaa kulanti dambe oo xiiso leh. Sameeyo ka baro barashada QuickBooks iyo point of sale. hadda iska diiwaan geli.